subax wanaagsan jimco wanaagsan waa 13ka bisha Maarso sanada 2026 maxaa ka soo kordhay dagaalada bariga dhexe qodobada aan idin soo gudbin doono waxaa kamid ah maleeshiya taabacsan dawladda Iran oo sheegatay inay soo riday mid kamid ah diyaaradaha dagaalka dawladda Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu dhaawacmay hogaamiyaha cusub ee Iran Mujtaba Khomeini Sacuudiga oo saacadihii la soo dhaafay la kulmay weerarada diyaarado drones ah iyo wasaaradda difaaca dawladdaasi oo ka jawaabtay aan ku bilaabay maleeshiya taabacsan dawladda Iran ayaa sheegatay inay soo riday mid kamid ah diyaaradaha dagaalka dawladda Mareykanka kooxdan daacadda u ah Iran ayaa subaxnimadan Jimcada sheegatay inay soo riday diyaarad nooceedu yahay KC-135 oo loogu talagalay inay shidaal ku siiso diyaaradaha hawada ku jira iyadoona kooxdu sheegtay inay diyaaradani ku soo rideen galbeedka dalka Ciraaq bayaan ay kooxdani ku daabacday kanaalkooda Telegramka ay ku sheegtay in dagaalyahanadooda ay diyaaraddu beegsadeen taasoo sababtay inay burburto marka laga yimaado sheegashada kooxda ayaa haddana dhinaca kale war ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka CENTCOM waxay ka bixiyeen xog ka duwan warka ay kooxdu baahisay wuxuuna Mareykanku sheegay in diyaaradahaasi dhicideeda sabab u ahayd shil iyo khaladaad farsamo dhinaca kale dalka Sacuudiga ayaa saacadihii inuu ka soo gudubnay la kulmay mawjado weeraro loo malaynayo inuu ka yimid dhinaca dawladda Iran weeraradan oo dhamaantood ahaa diyaaradaha droneska ismidaamiya ayaa mar qura qabsaday hawada boqortooyada Sacuudiga inkastoo aan la helin xog ku aadan inay weeraradan diyaaradaha ay beegsadeen bartilmaameedyadii la qorsheeyay haddana dhinaca kale war ka soo baxay wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu sheegay in ciidamada difaaca cirka ee dawladda Sacuudiga ay ka hortageen weeraradaasi ayna soo rideen 10 diyaaradood oo drones ah kuwaas oo dulmarayay qaybo kamid ah gobolada dhaca bariga dalkaasi ayaa lagu jiray war ka soo baxay wasaaradda difaaca dawladda boqortooyada Sacuudiga dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu u malaynayo inuu dhaawac yahay hogaamiyaha cusub ee Iran Mujtaba Khomeini sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay Jimcadan hogaamiyaha cusub Iran Mujtaba Khomeini uu u malaynayo inuu dhaawacmay laakiin shaqadiisa uu sii wato Trump ayaa sheegay in Mujtaba Khomeini uusan ka soo hormuuqan shacabka Iran tan iyo markii ay doorteen golo culamo Iiraani ah sarkaal Iiraani ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa u sheegay in maalinimadii Arbacada inuu ka soo gudbay in hogaamiyaha cusub ee Iran uu soo gaaray dhaawac fudud oo ka dhashay duqeymaha Israa'iil iyo Mareykanka ay ka fulinayeen gudaha Iran laakiin sarkaalkan ayaa sheegay in Mujtaba Khomeini dhaawaciisu ahayn mid daran sidoo kalena shaqadiisa uu wato Trump oo warbaahinta Fox News la hadlay ayaa yiri waxaan u malaynayaa inuu nool yahay Mujtaba Khomeini hogaamiyaha cusub ee Iran laakiin waxay ila tahay inuu qabo dhaawac